فرجلين تورتو سكسور معارض ولا هاي واحد جرت واحد كود سمعنا عن المعارض أنا فرجلين تو كوس ميهورت سومالي واحد هاد خلط ويا مريك دور شديسي إلا تقال بيقعده أنا وحبه كمان عندي أبي أو سيد ديمقراطية الله صو دورتي وكوري ماضي وحيا سومالي وتاجر لكن أنا ما تاجر وكوري ماضي وقف واحد كسينين وكماملو عندما يو بعد جيت هذا بس شعبان دي سنين waxaan ku yiri Mareykanka arintii su'aasha aad weydiinayso head oo inuu waqtiga ay dhahday waxa ka horeeyay last year beesha caalamka oo dhan waxay tiri 24 hadii la gaadho waanu joojinayna ma aysan joojinin because awood u maleeyo anagu waxaan dal siyaada leh okay marka waa inaan shacabku wada sheego waxa la qaad wuxuu ugu dhiiraday inaan ka jawaabaan rabay waadna weyn weydiisay dabcan wuxuu ugu dhiiraday khilaafka noo dhaxeeya ay ka faa'iideystay marka aan ku soo noqdo tii aan daawaday Sisi ayuu taageeray wuxuu oo afgembi ku yimaaday mursina waa la xidho waad ogeed inuu dimuqraadiyo ku socon shacabku waa inay fahmaan interestigiisu u socdaa Soomaaliyana inay burburto ayuu Mareykanka ka shaqeeyaa macnaheedu ma aha haduu nala istaagay mucaaradka bariir wuxuu la istaagay maxaafadkan oo kala qaybinaya okay arinta su'aasha oo farmaajo mas'uul ma ka yahay ha 100% mas'uul ka yahay madaxweyne farmaajo ayadoo anoo tixgelinaya labadoodaba xildhibaanka oo waliba astaan qaran isagii jawaari markii la yiraahdo Soomaaliya waddanka dowladda damay iyo garyaqaanka ay laakiin xaqiiqo ahaan waxa jirta madaxweyne farmaajo uu ka duwanaa labadii madax hore qodobkaas 26 bishii September mise December 2020 waa sax waxay sameeyeen in firaaq dastuur uusan imaanin laakiin madaxweyne Xasan 7 bilood kahor ayadoo waqti ugu dhamaanin baa la sameeyay ayaa lagu daray laakiin madaxweyne farmaajo ma uusan u diyaar garoobin meesha la dhahay halkaas wanaagsan looma diyaar garoobin in la yiraahdo waxa dhow 8 February no 7 September February baa dhow lama dhihin oo wax lagu darin number 2 umuusan diyaar garoobin number 2 waxa weeyaan waxa ka dhashay caqabad gaartay dalkii inuu dagaal galo oo waad ogeed badbaado qarni wixii يعني سيدي اللي قلت هاجري يضلكوا خطر قليو أنا وهذا نسأل عن لوس عزيز الله بكاس وعندي لا قدوميا برلمانكا مرسل ها هيو بكاس سوماليا ساكوين مركز لبضع إكتو إيو يستقوا صاحب بدي يسوي حول بقولي مركز إكتو مركز ميزامته لأنه حنشجع وأنا نكون ميزامه وحيد عي ياسين فريق قضية ديسي قولت سدوكوا بحياة ولا بدأ تسكن قامر وأنا جرين إني قبل باش يهين مكي لاقو سدو فهد ولا قرب استاجر مركز إكتو يعني مهمة سوما يستنهي المدحوينة ومدحوينة قرن طبعا أنا من سنة سدو يري ويا إلا ومدحوينة كالكي ما دوا استجمع مدحوينة لأنه حقيقة ضد الشعب بين الله شجمها مدحوينة فرماجة أيام مسؤول كع دبودا عن عي حد لكن حكومة كعصمها ما دام رئيس الوزراء سووا كيروي هاي مدحوينها وكفر مدحبناي هاي هل وحن كبر قف هذا كذا ما يو لكن ورياته واحد جودين يسار هذا أوكي وحويان إصلاح هذا السجا مسؤول كع أو لفت جران سوق إمادوان وجينو السجا الله هذا لبس الساحب السجا أول جران أنا أكوه بقول شيء ما حدينه هيسا وحن كوه هيا وحويان إنه يدي كم قريب قال يا لفت جران waxaan kala ognahay markii telefoonada loo diray uu ka qayb galay markuu haduu diidi lahaa ma imaanayo dhihi lahaa waa macquul gal oo dhihi lahaa doorashada shirka looga hadla aniga ma imaanin haduu dhihi lahaa laakiin uu ka soo qayb galay Soomaaliya kadib ra'iisul wasaaraha wada hadlay aan ku wada markaa lafta gareen markuu ogaaday inaan qorqor lagu qanciyay waxa la wada hadlay musharaxiintii Soomaaliya beesha caalamka la wada hadlay markii lagu qanciyay ayuu meel ku banaan male u yimaaday waad arkaysi markay is arkayeen isu imaanayeen salaanta is salaameen baad wax ka garanaysaa okay taas waa meeshaas laakiin waxaan qabaa shakhsi ahaan markaan doodeyno inaan iska doodno ma waa in xal la keeno mucaaradkana dan uma aha محافظنا الضن وماهن إني هذا خلاف دعوة واحد دنا نوجد جرت معه لأنه مريكان كهذا مركو كله يرنيه إن أنا قوم عارضة عندنا والله مريكان بوحيلي مريكان هذا سؤال شاد واحد كوسي جرتوك أديك يستاجسي إن سبويلرز كان قبنا يوم كاسان الصومالي بعنا هاي بدحين فرماجو وان الصوماليات جبت السبب بأن الجرينيا أيضا وحاس أي مقاطع وحويان واحد اللي يراد كاروت دبلوماسي أنا واحد دبلوماسي كاروت عن ستيك مرة waxaa lagu dhufanayaa marna waxba lagu siinayaa mucaarad kale leh taasi wax aqlimaan laakiin madaxweyne farmaajo sida ay dadka kale maamul goboleedyadu qaarkood ay mas'uul uga yihiin khaladka ayuu isaguna mas'uuliyadeeda qaadaya hamdaan